Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idiin soo gudbin ninkii keligiis duulaanka qaaday rabayna in jasiirad dad degan yihiin la wareego. Taasoo dhacday 1990kii. Meesha ay arrintaani ka dhacday waa jasiiradda Sark oo ah jasiirad aad u yar. Waxaa degan 600 oo qof. Waxa ay hoos timaadaa UK, laakiin waxa ay aad ugu dhowdahay Faransiiska. Waxay leedahay xukun u gooniya oo la kala dhaxlo. Jasiiraddan ayaa waxa mamnuuc ka ah gawaarida. Waxaa loo ogol yahay dadka degan inay baaskiil kaliya isticmaalaan. Haddaba 1990kii ayaa nin Faransiis ahaa oo la dhihi jiray André Gard waxa uu goostay inuu keligiis qabsaday jasiiraddan oo uu la wareego. Maadaama aysan jasiiraddani joogin booliis badan, oo jasiiradoo dhan waxay leedahay hal askari booliis ah oo si mutadawacnimo ah ugu shaqeeya, wax hub ahna aan haysan. Haddaba ninkan oo aad u huba inaysan cidi ka hor joogsan karin la wareegidiisa jasiiraddaas ayaa waxa uu waraaqo uu ku iclaaminayo in berri duhurkii uu la wareegayo talada jasiiradda ayaa waxa uu ku daadiyay halkaas. Dadkii meesha deganaa ayaa u maleeyay inay ahayd kaftan ama nin ciyaaraya. Maalintii ku xigtay ayaa waxa halkaas yimid ninka keligiis oo hubaysan, dharka ciidanka aana ku labisan, waxana uu sitay qori. Ninkan ayaa waxa uu fariistay meel isagoo qoriga nadiifsanaya, khasnadiisana buuxinaya, isuna diyaarinaya duulaankii uu samayn lahaa. Iyadoo xaalku sidaas yahay ayaa waxaa soo aaday dhankiisa halkii nin ee sida mutadawacnimada ugu shaqaynayay booliiska, isagoo iska dhigay inuusan dan ka lahayn ninkan, waxana uu ammaanay hubkii uu sitay, sheekana la bilaabay. Haddaba intuu ku sii jeeday cabaynta qorigiisa ayuu intuu ku soo booday qorigii ka qaaday. Sidaas ayay ku fashilantay qorshihii uu ninkaasi ku rabay inuu halkaas ku qabsado, isagoo lagu xiray jasiiradda Guernsey ee ka agdhow, waxaana lagu xukumay 7 maalmood oo xariga. Sanadkii ku xigay ayuu isku dayay inuu duulaanka la soo qaado, laakiin intuusan soo gaarin halkaas ayaa la qabtay isagoo lagu celiyay waddanka uu dhashay ee Faransa. Haddii aad ka faa'iiday fadlan like garay, haddii kalena dislike samay. Intaan mar dambe kulmayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.